kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa ka qaxay dalka intooda badanna u qaxay dalka Itoobiya wixii ka dambeeyayna qaxootiga Soomaaliya waxa ay gaareen meel waliba dunida taasoo ugu wacan wadankii oo dhaqaalihiisii aad u sii xumaaday nabadgelyadiisana ay sii xumaatay sanadkii 1989 iyo intii ka dambeysay waxa wadanka Soomaaliya ka samaysmay laba urur oo kale oo hubaysan ururka USC oo ka dagaalamayay gobolada dhexe ee dalka iyo ururka SPM oo ka bilaabmay gobolada koonfureed dabadeedna Yuusuf Xasan waxa barnaamijkan waanu sii daynay 22 Oktoobar ee sanadkii 90kii uu u gudbay su'aashan laakiinse mucaaradka Soomaaliyeed fikrad ahaan miyuu ka fiican yahay taliska Maxamed Siyaad Barre su'aashaasi waxaan ka wareystay Professor Said Samatar oo cilmiga taariikhda ka dhiga jaamacadda Rutgers ee dalka Mareykanka dadka waqooyiga ka dagaalamaya oo shacbiyan soo kifaaxay yani shacbiga isaaqu waa shacbi heroism geesinimo sameeyay waa soo kifaaxeen naftoodii bay hureen xoolahoodii bay hureen laakiin nasiib daro maxaa arrintoodii weli aan wanaajin waxa weeye nimanka madaxda u ah oo sidii qiiqi isugu wareeganaya waayo nin kastaaba inuu isagu maaragtaa meesha xukumo ama uu waxboobo ayuu doonayaa marka kifaaxa dadka isaaqa ay soo galeen iyo sida betrayalku madaxdoodu ay ugu samaysay waa wax laga naxaa sidoo kale qolyahan USC-da la yidhaahdo waad la socotaa sidaasay hadda isaga soo horjeedaan jab waxay u jabeen xaggaa iyo Addis Ababa jabna waa kuwaan maaragtaay weli banaadi wax ka wada shacbigii ay kiciyeen diyaar bay yihiin inay Maxamed Siyaad maanta ka tuuraan 2 daqiiqo ma qaadan karto USC kaliya ayaa ka tuuri karta meesha maxay marka uga tuuri laayihiin sababtu waxa weeye kuwii madaxdoodii ahaa yaa sidii qiiqi isugu wareegaya oo midba wuxuu rabaa inuu meeshii boobo SPM iyaga laftooda keligood haddayin SPM keligood Maxamed Siyaad Barre meesha way ka tuuri karaan maxay uga tuuri laayihiin waxa weeye iyagii baa dhexdooda isku qiiqaya oo isku wareeganaya marka dhankaas haddii laga eego waxaa la odhan karaa war Maxamed Siyaad Barre iyo nimankan mucaaridiinta isku sheegaya ama dibadda ha joogeen ama wadanka meelihiisa kala joogeen waa dameer iyo labadiisii dhagooda waxba isma dhaamaan ninkan afweyna amaynu iska maagaynaaba dameeshi maxaa dhaamo jira dhanna waxaa laga odhan karaa haddii uu 21 sano sidii mataqaanaa iyo xaaskii shacbiga Soomaalida oo sidii ari noqday hadba neef iska qabsanayay malaha dalada maaragtaay wax kastaaba waa dhaamaan bad isaga mar la iska khaarijiyo laakiin isaga hadii la khaarijiyo maxaa imaan doona wax dhaamaa ma jiraan mise talismorsi kale ayaa imaanay sanadkan gudihiisa xisbiyo kaleeto oo dheeraada ayaa laga sameeyay dalka dibadiisa laakiinse wadanka gudihiisana waxa ka dhashay dad aan dawladda ka cabsanaynin sanadkii hore dhamaadkiisii magaalada Muqdisho waxa ka soo baxay baaqa la magac baxay bayaankii koowaad oo ay saxiixeen duqeey taariikh weyn ku lahaan jiray dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Maxamed Abshir Muuse waxa hormood nimankaasi u ahaa garyaqaanka Soomaaliyeed Ismaaciil Jimcaale Cosoble waana kan asagoo arrintaasi ka waramaya anagu waxaan nahay dad ka soo horjeeda wixii maslaxada dalka dhibaya dad u soo taagan oon ka gabanaynin in dalkii wax laga bedelo maanta nidaamka uu ku socdo in talada dalka lala leeyahay Maxamed Siyaad Barre iyo ragga maamulka la haya in la tuso oo nin kastoo Soomaaliya ama maamulka ku jira ama dibadda ha jooge xil ka saaran yahay maslaxada dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka marka dagaalkii markuu sii xumaaday Soomaalidii dhiigii daadanayay dhaqaalihii sii baaba'ay hadda ay taagan tahay Soomaaliya waxaan bajirin dawlad ahaan ama shacabka Soomaalidu 2000 inuusan gaarin markay gaartay hadda waxay gaartay qofka sidoo u socdo marka dambe darbiga markuu dhabarka saarto waxun baa ka soo baxay waa codkii Ismaaciil Jimcaale Cosoble ka hor intuusan geeriyoon aaskiisii oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay dad aan ka yareen 5 milyan